dad badan ma jecla inay daayaha ku qabtaan masnool iska badda inay xanaanaystaane ha yeeshee 14 jir lagu magacaabo Jalwa Isma Kamaal kuma jirto dadkaas waxay jeceshahay inay dhaqato ama xanaanayso masaska waxaana sababtaas awgeed ay caan ka noqotay gudaha dalkeeda Indonesia iyo qayb ahaan baraha bulshada sida barteeda Instagram-ka xiriir maalinle ah ayaa dhexmara iyada iyo masas waaweyn oo gaaraya 6 kuwaas oo gurigooda jooga waxaana ay siisaa cunto iyada oo sidoo kale u meereysa dad badan oo arkay muuqaalada laga soo duubay xiriirka nololeed maalinlaha ee kala dhaxeeya masaska waxay la yaab awgiis ula taagaan afka waxay la qabsiga iyo xanaanaynta masaska la kowsatay iyada oo 14 jir ah waxaana sida muuqata uu xiriirkaas hadda noqday mid aan kala go'i doonin mana dareento in yar oo cabsi ah markay ag joogto laakiin ma ahan qofka kaliya oo qoyskeeda kamid ah kaas oo saaxiib fiican la ah masaska xitaa walaalkeed ka yar ayaa la arkayaa isaga oo qoorta ku sita mas weyn isaga oo xitaa aan dareemin in yar oo baqdin ah bishii hore ayay bilaabeen inay barta Instagram-ka soo galiyaan muuqaalada masaska ay la joogaan waxaana ay soo jiiteen indhaha kumanaan qofood